السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta qaaliga waxaynu kusoo guda jirnay koorsadeena network fundamentals. maanta waxaynu ka hadli doonaa amaba qaybtii labaad ayaa inoo socotay koorsada. maanta waxaynu ka hadli doonaa bitka iyo waxa uu yahay iyo sidoo kale siyaabaha loo calculate gareeyo ama loo xisaabiyo ee loo soo saaro tiro kastaba inta bit ay u dhigmato. taasoo in cashirkeenan aynu kaga hadli doono. ugu horreyn soo dhawaada channelka haddaad ku cusub tahay noo subscribe garee, haddii kalena la wadaaga asxaabtaada. waxaynu niri bitku tusaale ahaan computer kastaba amaba computerku waxa uu adeegsadaa luuqadda la dhaho binary digits ayuu adeegsadaa. binary digits kaas oo ka kooban 0 iyo 1 ayay ka kooban tahay. 0 iyo 1 ayay ka kooban tahay. marka haddii aad computerka aad ku qortid tusaale ahaan number haddaad ku qortid number 5 oo kale haddaad ku qortid waxa uu isagu u bedelanayaa ama compilerka ayaa u turjumaya oo u bedelaya translator ugu sameynaya waxaanu u bedelanayaa 8 number ayuu bedelanayaa. 8daas number ayaa la dhahaa bits. 8daas number ee uu bedelanayo waxay isugu jirtaa 0 iyo 1 ayay isugu jirtaa. marka 8 number ayuu bedelanayaa. sidoo kale haddaad computerka aad ku qortid magac tusaale ahaan haddaad cali oo kale aad ku qortid waxa uu bedelanayaa 8 number ayuu bedelanayaa oo uu turjumanayaa. marka luuqadda bini'aadamka ama luuqadan caadiga computerku ma yaqaan, laakiin waxa uu yaqaanaa luuqadda la dhaho binary digits. haddaba bit kastaba 8 bit amaba 8 bit kastaba waxa uu dhigmaa hal byte ayuu u dhigmaa. sida halkan kaaga muuqata 8daas bit ee ah 8da number 0yada iyo 1ka iskugu jirta waxa uu dhigmaa hal byte ayuu dhigmaa. sidoo kale 8 byte-na waxay u dhigmataa 8 qaybood ee uu bit isku leeyahay waxay u dhigmataa 4 byte. marka waxaynu isla arki doonaa sidee ayay ku soo baxday tiradani 0 iyo 1 sidoo kale tiradan kale sidee bay ku soo baxday waxaana 1 iyo waxaana 0. maanta ayaynu xisaabin doonaa oo cashirkeenan ayaynu ku falaqayn doonaa. tusaale ahaan example-keenan waxaynu ku qaadan doonaa ab ayaa halkan inooga muuqda. ab-gan markaynu ku qorno computerka isagu waxa uu u bedelanayaa numberskan kala duwan ayuu bedelanayaa. numberskan ayuu u bedelanayaa. marka waxaynu rabnaa inaynu isla aragno sidee ayaa lagu xisaabin karayaa ama waa lagu soo saarayaa 192 inay intaas ay noqotay. sidoo kale 168 inuu intaas noqday. .1 inay intaas noqotay iyo .5 inay intaas noqotay. marka cashirkeenan ayaynu ku falaqayn doonaa. ugu horreyn soo dhawaada haddaynu halkan aynu la tagno 192 horreyn haddaynu isniraahno xisaabiya 192 marka ugu horeysa waxaad samayn doontaa waad qaybin doontaa. waxaad u qaybinaysaa markasta 2 ayaad u qaybinaysaa. marka haddii markaynu 2 aynu qaybino 192 hadday inoo soo baxdo tiro bilaa hadhaaya waxaad u qaadan doontaa 0 ayaad qaadanaysaa. haddii ay tiro bilaa hadhaaya kugu soo baxdo 0 ayaad qaadanaysaa. haddii ay kuu soo baxdo tiro hadhaa wadatana waxaad qaadanaysaa 1 ayaad qaadanaysaa. marka sidaas ayaynu ku xisaabin doonaa. hadhow 0yada iyo 1kaas aynu mid kasta aynu qaadanay ayaynu dhihi doonaa waa bits. ugu horreyn haddii aynu 192 aynu qaybino 2 waxay soo bixi doonto ayaynu rabnaa inaynu eegno. waxay soo baxaysaa 96 ayay soo baxday. marka 96 aad u jeedid waa tiro caadi weeyaan.
tiro caadiya maadaama ay tahay aan soo yar weyneeyo tiro caadiya maadaama ay tahay inagu waxaynu qaadan doonaa amaba aynu halkaa dhigan doonaa 0 ayaan dhigan doonaa marka 0gaas ayaa inoo turjumi doonaa 0gaas ayaynu hadhow aynu turjuman doonaa sidoo kale waxaynu sii qaybin doonaa 96 ayaynu sii qaybin doonaa fartii baa iga yaraatay aynu kaba soo guurnaba waxaynu sii qaybin doonaa ayaynu nidhi 96 ayaynu waxaynu sii qaybin doonaa 2 96 markaynu 2 usii qaybino waa 49 48 iyaduna waxay inoo soo baxday tiro kale oo caadi ah inoo soo baxday oo bilaa hadhaaya waxaynu qaadan doonaa 0 haddii aynu hoos u degno waxaynu sii qaybin doonaa 48 inagoo u qaybin doonaa 2 waa 24 sidaa daraaddeed waxaynu qaadan doonaa 0 24 ayaynu sii qaybin doonaa ayaynu qaybin doonaa 2 waxay inoo noqonaysaa 12 sidaa daraaddeed haddana waxaynu qaadan doonaa 0 12 ayaynu qaybin doonaa 12 markaynu qaybino waxay inoo soo bixi doontaa 6 waxaynu qaadan doonaa haddana 0 sidoo kale waxaynu qaybin doonaa 6 ayaynu qaybin doonaa waxaynu qaybin doonaa 2 waxay inoo soo baxday 3 maadaama ay 3 inoo soo baxday waxaynu qaadan doonaa 0 sidoo kale 3ga ayaynu sii qaybin doonaa 3ga markaynu 2 aynu sii qaybino waxay inoo soo bixi doontaa 1.5 maadaama ay maanta inoo leedahay hadhaa oo 0.5 kaas uu hadhaa u yahay waxaynu dhigan doonaa 1 sidoo kale haddii tiradaas aad soo qaadanaysid waxaad ka tegi doontaa hadhaagaas ayaad ka tegi doontaa 1ka caadiga ayaad qaybin doontaa 1 ayaynu qaybin doonaa waxaynu u qaybin doonaa 2 ayaynu qaybinaynaa waxay inoo soo bixi doontaa 0.5 iyaduna hadha ayay wadataa markaa waxaynu qaadan doonaa 1 markaa waxaan filayaa inaynu hadda aynu wada qaybinay ilaa ay 0.5 aynu ka gaarsiinay haddaba sidee ayaa loo soo qaadanaya 0yadan iyo 1aanka waxaad ka soo bilaabi doontaa xagga hoose ayaad ka bilaabi doontaa waxaana u socon doontaa xagga sare tusaale ahaan sidan ayaad u wadi doontaa amaba aad usoo qaadan doontaa haddaba aynu soo qaadano halkan baynu ka bilaabaynaa waxayna geynaynaa halkaas waxay inoo soo baxday 1 iyo 1 2 3 4 5 6 iyo 6 0 192 waxay inoo leekaatay intaas ayay inoo leekaatay bal aynu isla eegno example-keena 192 waxay inoo soo baxday 11 iyo 6 0 markaas sidaas ayaa loo soo saarayaa bitiska kala duwan amaba bitiska koobaad sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa 168 sida loo soo saaro haddii aynu halkaa iyadana isla tagno 168 waxaynu u qaybin doonaa 2 waxay inoo soo bixi doontaa iyadana 84 maadaama ay inoo soo baxday tiro caadiya waxaynu qaadan doonaa 0 sidoo kale 84 ayaynu qaybin doonaa waxaynoo qaybin doonaa 2 iyaduna waxay inoo soo baxday 42
42 iyadana waxaynu qaadan doonaa 0 ayaynu qaadan doonaa sidoo kale 42 ayaynu sii qaybin doonaa waxay noo soo bixi doontaa 42 markaynu qaybino waxay noo soo bixi doontaa 21 kaas isagana waxaynu qaadan doonaa 0 caadiya 21 ayaynu sii qaybin doonaa inagoo usii qaybin doonaa 2 waxay noo soo bixi doontaa iyaduna 10.5 maadaama ay maanta ay hadhay noo yeelatay 1 ayaynu dhigan doonaa sidoo kale waxaynu qaybin doonaa intaynu ka tagno 0.5 ka ayaynu 10 kaas qaybin doonaa 10 oo loo qaybiyay 2 waxa uu la mid yahay 5 isagana waxaan dhigan doonaa 0 sidoo kale waxaan qaybin doonaa 5 ayaan qaybin doonaa 2 waxa uu noo soo bixi doonaa 2.5 maadaama uu hadhay leeyahay 1 bayn dhiganana sidoo kale waxaynu qaybin doonaa 2 gaas ayaynu qaybin doonaa 2 oo hadhaaga ayaynu ka tagnay 0.5 ka ayaynu markaas iskaga tegaynaa kabacdi waxay noo soo bixi doontaa 1 waxaynu dhigan doonaa 0 markaynu dhigano sidoo kale waxaynu qaybin doonaa halkaas ugu dambeeya markaynu qaybino waxay noo soo bixi doonaa 0.5 ayuu noo soo bixi doonaa waxaynu dhigan doonaa 1 marka waad joojinaysaa marka aad ka gaadhid 8 digits tusaale ahaan halkan waa 4 iyo 4 8daas markaad ka gaadhid ayaad iska joojinaysaa marka sidoo kale ayaynu samayn doonaa waxaynu ka bilaabi doonaa tirada xagga hoose ayaynu ka soo bilaabi doonaa waxaynu wadi doonaa kor kabacdi haddaba bal aynu qorno waa 1 0 1 0 1 3 0 intaas ayaynu eegi doonaa waa 10 kun intaas ayaynu eegi doonaa inay noo soo baxday tirada la dhaho 168 tiradaas marka loo bedelo digit ahaan waxay noqonaysaa intaas ayay noqonaysaa marka waa 10 kun bal aynu soo eegno haddaba waa tan 168 waa tan inoo soo socota 10 kun marka sidaas ayaa loo soo saaraa waxaan filayaa inaad fahanteen sidoo kale waxaynu isla arki doonaa 1 kaas ayaynu xisaabin doonaa amaba taas ayaan ugu dambaysiinayaa anigu waxaad qaadan doontaan oo aad ka soo shaqayn doontaan number 5 iyo sidoo kale assignment-kan yar ee halka inooga muuqda oo goobo gelida leh labadaas ayaad ka soo shaqayn doontaan marka ugu horeyn aan ka shaqeeyo number 1 number 1ku sidee ayuu ku soo baxay digit-kan isagana si la mid ah ayaynu la tegi doonaa halkaas waxaan dhihi doonaa number 1 ayaynu qaybinaynaa 2 u qaybin doonaa waxa uu noqon doonaa 0.5 marka waxaynu qoranaynaa hal ayaynu qoran doonaa maadaama uu inoo soo baxay 0.5 amaba hadhaa inoo soo baxay sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa 0gaas ayaan markaan soo qaato ayaan u qaybin doonaa 2 tusaale ahaan waa 0 oo loo qaybiyo 2 waa 0 unde 0 ma yahay waxaynu qaadan doonaa 0 marka maadaama oo intaas u dambaysa
ay wada tahay 0 oo la sii qaybinayo waxaad samayn doontaa waad buuxinaysaa godadka ku xiga oo dhan ayaad buuxinaysaa wada 0 ayaad ku buuxsanaysaa tusaale ahaan halkan imika waxaynu haysanaa 2 god ayaynu haysanaa 8na waa la inaga rabaa waxay noo dhiman 6 god 6da godba waxaynu ku buuxin doonaa 0 maadaama aan wax la sii qaybiyo aan jirin waa 4 iyo 4 hal xaba ayaa dhiman isagana sidaas ayuu inoogu soo baxay markaa waxaynu samayn doonaa sidayna ayaynu xaggan hoose kasoo tirin doonaa waxa weeyaan waa 0 0 0 0 0 0 1 1kuna waxa uu la mid yahay intaas oo digit ayuu la mid yahay marka aynu isla soo eegno isagana waa kaas waxa uu la mid yahay intaas ayuu la mid yahay marka waxaad commentiga aad kusoo qori doontaan markaa soo saartaan number 5 iyo sidoo kale assignment-kan intaynan gaadhin aynu yar sharaxno halkana waxaa inaga muuqda numberka la dhaho 192.168.23 iyo sidoo kale 132 132 waxay u dhigantaa ayuu ku yiri intaas ayay u dhigantaa oo iyadu waa host id weeyaan waa ib-gani waa class C weeyaan class C maadaama uu yahay hore ayaynu cashar kaga soo hadalnay class C-ga waxa uu hoostiyaa oo uu adeegsadaa hal god ayuunba adeegsadaa marka halkaa god ayuunba ku xisaabtamaa oo u dhiganta 256 device inuu classkaasi uu qaado marka maadaama uu yahay sababtaas ayaa loo casayay oo highlight loo saaray class C uu yahay sidoo kale saddexdan godina waa network weeyaan oo cashar hore ayaynu kaga soo hadalnay ku noqon mayno marka tiradaasina waxay u dhigantaa intaas oo digit ayay u dhigantaa tan kalena intaas oo digit ayay u dhigantaa qaab isku geyn waa 32 bit weeyaan sidoo kale halkan waxay nooga muuqda 0 0gu digitkiisu waa waxa weeyaan oo waxa la dhaho 0 weeyaan sidoo kale tiradu hadii ay buuxdana waa 1 marka hadii lagu dhaho tusaale ahaan 255 soo saar inta digit ay u dhiganto isdhibi maysidba hadhaasa tiradani way buuxdaa Soomaha waxaan qaadanayaa 81 ayaan qaadanayaa sidoo kale hadii ay tiradaasi ay 0 ay tahay waxaad u qaadan doontaa 0 ayaad u qaadan doontaa marka sidaas ayaad ku heli doontaa inta digit ee ay tahay intaas haddaynu ka nimaano waxaynu assignment-gan aynu sula arki doonaa ib-gan la dhaho 10.1.1.1 markaa waad ka soo shaqayn doontaan commentiga ayaad fariinta amaba aad goobagelid aad ku soo qori doontaan tusaale ahaan haddii aad qaybisid 10 waxay ku noqotay tusaale ahaan intan oo kale ayay ku noqotay sidoo kale 1ku waxa ku noqday intan oo kale 1ka kalena intaas kale 1ka kalena intaas kale ama watan baabay ku noqotay marka waxaad samaynaysaa markaad ka soo shaqaysid waxaad commentiga ku soo qori doontaa assignment-ga waa C ayuu noqday ama D ayuu noqday xarafka uu noqday ayaad ku soo qori doontaa waxaan filayaa inaad casharkan wax badan aad ka fahanteen sida binary-ga loo soo saaro ama digits-ka kala duwan ee uu ka kooban yahay ib-gu loo soo saaro intaynu casharka ku xiga aynu ku kulmayno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.